uma bahaysanaba kufsigu inuu yahay zina sinuun bay ka hadlay yaa sinaysta yaa hablaha sasabta yaa ku yiraahda waa ku guursanayaaye bal waxiisi yaro hormari yaa haday doonaan been ku mehersada yaa xudxuta yaa waxaan oo gabadh Soomaaliyeed oo anigu shacabka ku sidoo meelaha marmaraysa garan maayo yaan la sinaystaa waa niman waxa sinaysanaya waa niman waxa kufsanaya waa niman haddana waxa oranaya saasina ma qabatay saa naga daaya illa culimadii ay soo istaagayaanay leeyihiin ninku hadduu gabadhiisa maaragtay uu wax ka qaato kufsi maaha muxuu ahaa gabadhaada haddaad wax ka qaado xoog kaga qaato ma waxaad aaminsan tahay ninku hadduu gabadhiisa wax ka qaato inay kufsi waa kufsi diinteenu waxay ina tiri marka gabadhaada marnaba qof bini aadan jirkiisa inaad jirkiisa miyuu leeyahay xaas adan ku weydiinaya xaaskaaga maadaa leh miyaad leedahay xaaskaaga laba qof oo siman oo isguursaday oo nolol xalaal iyo wax qurux badan ay wadaagaan isugu yimi ma tiidin mar walba wanaag baa idin ka dhaxeeya iyo isweydiin waxa la maxay ku diiday kuma badiidayso hadii meesha wanaag yaalo iyo hadii kuma badiidayso laakiin waxay ku diiday baa meesha ku jira ya hadaanad biilayn hadaanad hagaajisanayn hadaanad maartay muxubaysanayn khasab ma ahayn ku siiso jidkeeda iyada leh laakiin soo ma ogid gabadhu hadii ninkeeda diido inay ciqaab ku mudanayso oo soo ma ogid ninku inuu haduu gabadhiisa iyo reerkiisa waajibkooda ka soo bixi waayo inuu ciqaab ku mudanayo nacalada ku socotay isagaba soo ma ogid maxaynu uga hadli weynay caruuraha dayacan ee banaanka yaala ya الرجال قوامون على النساء بين لسبنا معناه ما واحد موديسا inay tahay waa lagu sareysiiyay ma aha waajib iyo culays baa lagu saaray aniga adigu wax deer